doonayaa in aanu jawaabo fursadan uga faa'iideysto madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo maalin dhaweyd aydu wada ogeydeen in uu yiri Soomaaliya waxaanu kala macaamilaynaa cid cusub oo aanu soo saari doono waa ka wada dhareegsaneydeen warkii uu ugu warramay ugu khudbadeeyay dadkiisa inay rabaan inay soo cumaamadaan qof cusub oo ay iyagu wataan oo Kenya ay mas'uul ka tahay oo iyaga u adeega oo ay meesha dhigteen waxayna ogeyn William Ruto iyo dadka la ra'yiga ah iyo dadka fikirkiisa qaba ee dawladaha jaarka qaarkood noqon kara ama ahiba in Soomaaliya ay ka gudubtay Soomaaliduna ka gudubtay waqtigii mas'uul Soomaaliyeed wadan yeelan jiray ku shaqayn jiray fikirka dalka waxa ay marxaati ka wada ahaydeen xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeedna ay beeniyeen damicii guracana ee TPLF afar sanadood ka hor waxay yiraahdeen magaaladan Muqdisho ah magaaladan Xamar ah beledkan Soomaaliya ah wuxuu baa madaxweyne ka noqon kara cidaasina mabageyda madaxweyne kama noqon karto xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo cidii ay u tirinayeen koo ka tahay hormoodna ka tahay waxay yiraahdeen been baad sheegteen qofka Soomaaliya waa muwaadin Soomaaliyeed xaq baan u leeyahay inuu madaxweyne noqdo aragtidii TPLF ee qaldaneedna way beeniyeen Soomaha marxaati kama wada ahayn soo xildhibaanada halkan jooga ma ahayn kuwii beeniyay ee yiri Soomaalinimo iyo codkayga si xor ah inaan ugu dhibno dawlad kastoo ay soo faragelisay walaalayaal way ku khasaari doontaa damacooda guracna waa lumi doonaa ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto dal kale oo kasta Soomaalidu milgihii sharafkii wadaniyadii iyo Soomaalinimadii ay lahaayeen ayay u holladeen wadadii saxda ahayd baana cagta saareen sunno cusub oo siyaasadeedna waa bilowday